بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ولوحان كد احجنا سورة بقرة waxaa noogu soo dambaysay ama noo socotayba nimankii reer bani israa'iil ama ahlu kitaabkii yuhuudda dhaqanadoodii waxyaabahay samaynayeen. waxaa noogu soo dambaysay in ay ku kufriyeen wixii ilaahay soo dejiyey, sababtuna ay tahay xasad dartii ay xasdahayaan inuu ilaahay fadligiisa ku soo dejiyo cid allaala ciduu doono oo addoommadiisa ka mid ah. carray la gadoomeen buu yidhi ilaahay oo ay la laabteen oo carro dusheeda ahaatay. kaafiriintana cadaab muhiim ah ayay leeyihiin. haddii loo yidhaahdo rumeeya wixii ilaahay soo dejiyeyna waxay odhanayaan annagu waxaan rumaynaynaa wixii annagana loo soo dejiyey. wixiina loo soo dejiyey ayaan markaa rumaynaynaa, waana wixii annagana loo soo dejiyaan rumaynaynaa. wixii ka dambeeyey qur'aanka xaqa ahna way inkirayaan. qur'aankaasoo rumaynaya wixii micigooda ahaaday. waxaad ku dhahdaa buu yidhi ilaahay maxaad u layseen nebiyadii alle horay haddaad tihiin dad mu'miniin ah. walaqad jaa'akum waxaa idiin yimid muusaa, nebi muuse ayaa bilbayinaati aayaad cadcad ah idinla yimid. uma intaa ka bacdina ittakhadtum waxaad ka samaysateen oo aad ka yeelateen alcijla, dibigii baad ilaahay ka dhigateen min bacdihi muuse kadib. muuse mar allaala markii uu soo baxay uu miisaaqii alle ballantii alle soo aaday iyo meeshii lagula waacaday ayaad dibigii ilaah ka dhigateen. wa antum daalimuuna, idinkoo ah kuwa daalimiin ah, kuwa dulmi falay oo shirki iyo edabdarre la yimid idinkoo ah ayaad dibigii ka samaysateen ilaah. waid akhadnaa, wadkuruu xusuusta id wakhti akhadanaa aanu qabanay miihaaqakum ballantiina oo warafacnaa aan kor qaadnay fawqakum dushiina atuura jabalkii oo aan idinku niri khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinayno biquwatin xoog ku qaata, idinkoo firfircoon oo adkaysi iyo karti iyo firfircoonni iyo nashaad leh qaata waxaan idin siinaynay ku dhaqma. khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idinla nimidoon idin siinayna biquwatin si xoog ah ku qaata. wasmacuu maqla oo ku camalfala waxa ku dhex suganna. jabalta inta la soo fujiya sida noo imaan doontaa dushooda saa loo saaray kaannahu dulla, sidii waxay harisay oo kalaa looga dhigay. ma idinku soo daynaa mase waad qaadanaysaan? khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinayna biquwatin ku qaata. wasmacuu maqlana. qaaluu waxay dhaheen samicnaa waanu maqalnay, wa casaynaa waana caasinay. weedabdarrii akhlaaq xumo meesha ugu dambaysa maqalnay oo caasinay. wa ushribuu waa la cabsiyey fii quluubihim quluubtooda alcijla, dibigii jacaylkiisaa la cabsiyey bikufrihim kufrigooda sababtiisa. qul waxaad tidhaahdaa bi'samaa shay baa baas leh ya'murukum ou idin amrahayo idin faraya bihi shaygaa iimaanakum iimaankiina in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah. sida aad sheeganaysaan wixii nala ku soo dejiyey ayaan rumaysannahay. ma dibi caabudaa ku qoran towraad? ma waxaa ku qoran in muuse gadaashiisa aad dibi ilaah ka dhigataan? qul bi'samaa ya'murukum bihi iimaanakum. qul waxaad ku dhahdaa bi'samaa waxaa baas lahaaday. bi'samaa shay baa baas lahoo ya'murukum ou idin amrahayo bihi shaygaa iimaanukum iimaankiina. ida aad sheeganaysaan iimaankiina wuxuu idin amrayaa baas leh in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa mu'miniin ah oo markaa iimaan leh sidaad markaa sheeganaysaan ama towraad rumaysan. qul dheh rasuulkii allah waxaad dhahdaa in kaanad hadday ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu daartii aakhire ee dambe cinda allaahi
alla agtiisa khaalisatan mid idin baraxla khaalis idin min duuni innaasi dadka sokadooda fatamannaw almowta maytamaniya inaad dhimataan jeclaysta marka hore in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya way noo imaan doontaa waxay odhan jireen wax janno gelaya ma jiro ilaa man kaana huudan aw nasaara qof yahuud ah ama nasaaro ah maahane annaga uunbaa jannana loogugu talagalay ayagoo xaalkoodu saa yahay oo hadalkaa ku hadlaya haddana dhimasho waxay ka necbanaayeen ma jiro janno goormee la galaa marka la dhinto oo rabbi hortii la tago tiidayba necab yihiinba xaaladaasuu ilaahay tilmaamayaa qul dheh rasuulkii allah waxaad ku dhahdaa raggaa yuhuudda ah in kaanat hadday idiin ahaatay lakum adinka addaaru alaakhiratu addaaru daartii alaakhiratu ee dambe cinda allaahi alla agtiisa khaalisatan mid khaas idin ah oo idinka khaalis idin ah min duuni innaasi dadka sokadooda fatamannaw almowta geeri tamaniya bal marka hore geeri jeclaystaba in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa markaa run sheegaya haddaad run sheegaysaan bal geeri tamaniya walan yatamannawhu ma tamaninayaan ma jeclaysanayaan abadan weligood waana bimaa qaddamat wixii ay horumarisay sababteeda aydiihim gacmahooda gacmahaa laga cabirayaaye waa wixii ayagu ay qabteen wallaahu ilaahi caliimun waa alla ku cilmi badan biaalimiina aalimiinta waxay yihiin iyo waxa ay falayaan iyo waxa ay samaynayaan intaba alla og waayo subxaana wa tacaala ayagoo xaaladoodu saatahoo janno annaga ma ahee cid kaloo gelaya ma la dhahaaya iyo haddana dhimasho necab yihiin wala yatamannawhu ma tamaninayaan oo ma jeclaysanayaan abadan weligood bimaa qaddamat waana wixii ay horumarisay sababteeda aydiihim gacmahoodoo dembi ah wallaahu ilaahina caliimun waa alla ku cilmi badan biaalimiina aalimiinta walatajidannahum waad helaysaa yuhuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan inay yihiin calaa xayaati nolosha dusheeda nolol lagu dadaalo iyo sidii loo noolaan lahaa in lagu dadaalo sababteeda sidii loo heli lahaa raggaa yuhuuddaad ku arkaysaa walatajidannahum waad heli yuhuuda axrasa annaasi dadka kuwa ugu dadaalka badan calaa xayaatin nolosha dusheeda inay yihiin in layska noolaado oo adduunkan layska joogo aad bay ugu dadaalaan wa min aladiina kuwii xaggooda xataa ashrakuu shariig yeelay xataa mushrikiinta ayagaa uga dadaal badan in la noolaado waayo yawaddu axaduhum midkood wuxuu jecel yahay low yucammaru in la cimri siiyo siiyow adduunka jooga 1000 sanatin 1000 sano wamaa huwa mana aha 1000 sano bimusaxsixihi mid ka fogaynayo ka dhaqaajinaya min alcadaabi cadaabka an yucammara xataa haddii la cimri siiyo 1000 sano maxay tahay beri bay dhammaanaysaa wax kasta oo la tiriya waa qariib saa darteed mid kastoo ayaga ka mid ah yuhuud wuxuu jecel yahay in la cimri siiyo 1000 sano buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala wamaa huwa mana ahaanin bimusaxsixihi min alcadaabi mid ka fogaynayee ka dhaqaajinayee ka durqinaya 1000 sano cadaabka xaggiisa an yucammara xataa haddii la cimri siiyo wallaahu ilaahayna basiir alla arkaya buu ahaaday bimaa yacmaluuna waxay camal qabanayaan ilaahayna waa arkayaa waana u jeedaa waxay samaynayaan qul dheh rasuulkii allow man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lijibriila jibriil cadow u ah ciilkiisa ha la dhinto qof allaala qofkiiba jibriil necabsoo ma aha mut bikaydik xanaaqaaga la dhimo jibriil fa innahu nazalahu asagu wuxuu dejiyey calaa qalbika qalbigaaga qur'aankuu ku soo dejiyey biidni illaahi ilaahay idinkiisa howl la qabto howsha ugu wanaagsan oo laysku aamino yuu ilaahay ku aaminay subxaana wa tacaala musadiqan qur-aankaasoo rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday wahudan hanuun xaal uu yahay wa bushraa iyo bishaaro yuu u yahay lilmu'miniina mu'miniinta jibriil calayhi assalaam malaa'igta midka ugu sharafta badan buu ka mid yahay
والسفيرك الله أدرتي سبحانه وتعالى إن وحيغا أو كسو قاضى الله أو أسو ديبو كدبنا رسوشي سأسو قارفيه جبريل إلهي سبحانه وتعالى وقوقت المامي مطاع ثم أمين ومن شرف يقيم قوني أهله ملائكة دحدو ذميز قوني أيوك ليه سيادرت باني منك يهودا وحيده النبي محمد دور سؤال بانك ويدينينا نوغا جواب هداد نوغا جواب تنوان قرمينينا سؤالو ينبضن أي سؤالين أهل جمه وحي عن لها ينبي ويديين sababta markay wiilasha abuurmayaan ay wiilal u noqdaan gabdhuhuna ay gabdho u noqdaan bay su'aaleen wax kasta markay weydiiyeen oo nebiga uu uga jawaabay ayaa waxay dhaheen xabaddii ugu dambaysay ee aan kugu rumayn lahayn ayaa dhiman nebi kasta saaxiib ayuu leeyahay waxyiga u keena yaa adiga saaxiibkaa ah kolkaasuu rasuulku dhahay jibriil alla bay dhaheen maya jibriil waa cadowgeena jibriil waa cadowgeenoo midkana baabi'iyeenna halaagay ummadda loo soo diree halaajiye waaye hadduu mikaa'iil ahaan lahaa waanu ku rumayn lahayn cadowgeenniiba haddaad saaxiib la tahay ku rumayn mayna waxaad nooga jawaabtayna taasaa u baafbaxday rabbi baa soo dejiye qul dheh man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lijibriila caradiisa ha la dhinto wuxuu qaadi kara ma laha fainahu nazalahu jibriil waa dejiyey calaa qalbigaaga biidni illaahi ilaahay idinkiisuu qur'aanka kula soo dejiyey musadiqan asagoo rumaynahaya limaa bayna yadayhi wixii hortiisa ahaaday wahudan hanuun xaal uu yahay wa bushraa bishaarana uu u yahay lilmu'miniina mu'miniinta man kaana qofkii ahaaday caduwan cadow lilaahi alle wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa wa rusulihi rusushiisa wa jibriil wa miikaala iyo miikaa'iil wa miikaala fa ina allaha ilaahay caduwan cadow ayuu u yahay lilkaafiriina kaafiriinta ilaahay cadow ayuu u yahay kaafiriinta intaasoo dhanba qofkii cadow u ah buu leeyahay ilaah subxaana wa tacaala oo ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo rusushiisa iyo jibriil iyo miikaa'iilba fa ina allaha ilaahay caduwan cadow ayuu u yahay lilkaafiriina walaqad anzalnaa waan soo dejinay ilayka xaggaaga rasuulkii allow aayaad baan ku soo dejinay bayinaatin oo cadcad ah aayaad bayinaad ahoo cadcad ah ayaan ku soo dejinay wamaa yakfuru mana ku gaaloobo oo kuma kufriya bihaa aayaadka ila alfaasiquuna faasiqiinta maahane dadka faasiqiintaee falaagada ah ee diinta rabbi aan lagu karin oo aan rabin maahee in kaloo aayaadka alla kufrisaayi ma jirto inta kale way aaminayaan way rumaynayaan way ku dhaqmayaan way ku camalfalayaan way raacayaan way jecel yihiin wamaa yakfuru biha kuma gaalooba aayaadka ila alfaasiquuna faasiqiinta maahane awa kullamaa caahaduu mar kasta oo ay la ballamaan cahdan ballan nabadahu waxaa buriya ballantaa fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah bal akharuhum badankooduna laa yu'minuuna rumayn maayaan mar kastay cahdi qaadaan oo ay ballamaan mar kastoo ay ballan galaan awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu waxaa tuurayuu burinaya ballantii fariiqun koox oo minhum ayay ka mid ah bal akharuhum badankoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan buu yidhi ilaahay walammaa jaa'ahum markii uu u yimid rasuulu rasuul oo min cindi illaahi alla xaggiisa uga yimid oo alla xaggiisa laga soo diray markastuu rasuulkaa min cindi illaahi uga yimid musadiqun rumaynahaya limaa macahum wixii micigooda ahaaday nabada waxaa tuurahayoo burinaya fariiqun koox oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisay tuurayaanoy burinayaan waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashiisay ka tuurayaan ka'annahum sidii laa yaclamuuna ayn ogeen oo kale ka'annahum waxaad mooddaa sidii ayagoo laa yaclamuuna aan markaa ogayn wax allaala wixii kitaabee xalla agiisa uga yimaada rasuul markuu u yimaado rasuulkaasuu alla xaggiisa laga soo diray rumaynahaya waxa micigooda ahaaday nabada fariiqun koox baa tuuraysa oo min aladiina kuwii ka mid ah
uutuu lkitaaba kitaabka la siiyey maxay tuurayaan kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa waraa'a duhuurihim dhabaradooda gadaashiisay ka tuurayaan kaannahum waxaad mooddaa sidii ayagoo laa yaclamuuna aan ogayn oo kale waayahe haddii kitaabkii alla ay tuureen maxay raaceen waattabacuu waxay raaceen maakii tatluu ay aqrinahayeen ashayaaiinu shayaaiinta waxay shayaaiini akhrinaysay raaceen calaa mulki sulaymaan mulkigiisii cahdigiisii ballantiisa wamaa kafara sulaymaanna ma uusan kufrinin walaakina ashayaaiina laakiinse shayaaiintii ayaa kafaruu kufrisay oo gaalowday yucallimuuna annaasa dadkaa waxay barahayeen assixra sixirkay barahayeen iyo wamaa kii unsila la dejiyey cala almalakayni labadii malag dushooda lagu soo dejiyey bibaabila dhulka baabil lagu magacaabo lagula soo dejiyey labadaa malagoo haaruuta wamaaruuta haaruut iyo maaruut kala ahaa wamaa yucallimaani ma aysan baraynin labadaa malag sixirkaa min axad xaggii ay barahayeen ma jiro xataa yaquulaa ilaa ay u dhahaan innamaa in kale maahee naxnu anagu fitnatun fitno iyo imtixaan baanu nahaye falaa takfur ha kufrinin ha baranin ee iska daa waa lagu gaaloobaye fayatacallamuuna waxay ka baranayeen minhumaa labadaa malag xaggooda maa yufariquuna wixii ay ku kala geyn lahaayeenay ku kala qaadi lahaayaanay ku kala dhaqaajin lahaayeen bihi maaga bayna almar'i wa zawjihi ninka iyo naagtiisa bayna almar'i wa zawjihi wamaa hum mana ay ahaanin bidaariina kuwii ku dhibi kara bihi kaa sixirkaa min axadna kuma dhibi karaan sixiroolayaasha ilaa biidni illaahi ilaahay idinkii maahane wayatacallamuuna waxay baranahayeen maa shay yaduruhum dhiba walaa yanfacuhum aan anfacin wax adduunkoodii aakhiradooda dhib u keenahaya nafcina aan u lahayn bay baranahayeen walaqad calimuu waxay ogaayeen laman ishtaraahu qofkii iibsadaa maa lahu inuusan ugu sugnayn fi laakhirati aakhiro min khalaaqin wax nasiib ah walabi'sa maa shay ayaa baas lahaaday sharow ay iibsadeen bihi shayga anfusahum nafyaalkooda low kaanuu yaclamuuna kuwa og hadday ahaan lahaayeen low kaanuu haddii ay ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa og wixii ay iibsadeenay naftooda ku gateen oo ay barteen kaasaa markaa baas leh aayaddu waxay tilmaamaysaa sixirka sidiisaba waa shay jira in la aamino inuu jiro laakiinse daatadiisii sidiisaynuusan waxba u dhimi karin ilaahay subxaana wa tacaala inuu imtixaan ahaan ugu talagalay sidoo kale waa in qofka muslimkaa uu aaminaa dunuubta alla laga galo iyo dembiyaalka la galo weliba kuwa cadaabka qofka ku tiimbiya inay ugu waawen yihiin sixirka rasuulku wuxuu dhahay 7 dembi oo lagu cadaab mutaysta ka fogaada midka ugu horaysa waa ilaahay oo loo shariig yeelo sixirka ayuu ku xujiyey sala allahu calayhi wasalam sixirka iyo saaxiriintu ma liibaanaan sixirooluhu alla agtiisa qiimo kuma laha qofkuu wax ka qaadi karaa ma laha ilaa ilaahay wuxuu asagu dadka u qora maahana subxaanahu wa tacaala sidaa darteed daatadiisii sidiisaba ayuu rabbi noo tilmaamayaa sheekada la tilmaamahayo 2 nebi ayaa la soo dejiyey oo adduunka joogi jiray wax kala xukmin jiray mar allaala markay xukun ku dhammeeyaan ayay samada aadi jireen gabar baa u timid waxyaaba noocaasay kula kaceen inay duulaan bay damceen way duuli waayeen ayadiibaa duushay xidiga zuhri bay noqotay xaaladda noocaasaa malaa'igtii la cadaabayaa waa la soo laalaadiyeyoo afkoodaa dhibaato iyo malax ka baxda saasaa lagu ciqaabaa waa sheekaan waxba ka jirin aayadda waxay tilmaamaysaa sixirka iyo xaaladiisa rabbi wuxuu tilmaamay dadka inay akhrinayeen waattabacuu maa tutlu shayaaiin waxay shayaaiinii akhrinaysay inay raaceen wakhtigii sulaymaan sixirka in lagu gaaloobayo waxaa laga fahmayaa rabbi wuxuu yidhi wamaa kafara sulaymaan ma uusan kufrinin walaakina ashayaaiina kafaruu
laakiin shayaadiintii baa kufrisay waayo yucallimuuna annaasa asixra sixirkay dadka barahayeen waxaa la tilmaamaya wamaa unzila cala almalakayn waa 2 malag dhulka baabila ku soo degahayay haaruud iyo maaruud sixirkaa loo soo dhiibay sababtuna waxay ahayd in dadka ay u kala caddeeyaan ay u sheegaan in lagu gaaloobayo qofkii yidhaahda anaa rabana inay markaa baraan waayo ilaah wuxuu yidhi wamaa yucallimaani min axadin cidinama aysan baraynin xataa yaquulaa ilaa ay dhahaan innamaa naxnu fitnatun falaa takfur idan waa malaa'ig way u naseexaynahayaan markaa kadib hadduu dhaho anaa u baahan gaalowga way baraayeenoo sayatacallamuuna waxay ka baranahayeen minhuma labadooda xaggooda maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi sixirku aad buu dhib badan yahay 2 qofood oo isqabta oo maxabii kalgacayl ka dhaxeeya yuu kala dhaqaajinayaa inta balaayo loo sameeyo kuwa biyo la cabsiiyo ku caano wax loogu daro yay ummaddu isugu necbaanayaanoo libaax iyo ri oo kale kala noqonayaan saa darteed buu ilaah yidhi maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjihi teeda kale waxaa la tilmaamayaa wax sixirkii sixirooluhu dadku ay ku dhibi karaan inuusan jirin ilaa ilaahay wuxuu idmo maahane wamaa hum bidaariina ma aha kuwa ku dhibi kara bihi sixirka min axadin ilaa biidni illaah ilaahay idinkiisa maahane wayatacallamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum dadur meehee nafci ma laha dhib ma ahee dheef ma laha xumaan meehee wanaag ma laha maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxa duraayo aan nafci lahayn walaqad calimuu laman ishtaraahu waxay ogaayeen waftii iibsado oo barta maa lahu fi alaakhirati min khalaaq inuusan aakhira wax nasiiba ku lahayn wala bi'sa maa sharow waxaa baas lahaaday wixii ay ku gateen bihi shayga anfusahum nafyaalkooda low kaanuu yaclamuuna kuwoog haddii ay ahaan lahaayeen walow annahum haddii ay ayagu aamanuu rumayn lahaayeen oo wattaqow ay cabsan lahaayeen ilaahay waa abaalmarin lahaa lamafruubatun abaalmarin oo min cindi illaahi alla agtiisa ahaatayaana khayrun khayr badan ilaahay abaalmarka agtiisa ahaadaa la abaalmarin lahaa kaasaana u khayr badan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala abaalmar qiimo badan oo sharaf leh ayaa la siin lahaa khayrun low kaanuu yaclamuuna kuwo og haddii ay ahaan lahaayeen yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayo laa taquuluu ha odhanina raacinaa kelimadaa raacinaa ha odhanina rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaad la dhawaaqaysaan ama aad la hadlaysaan raacinaa ha dhihina waquuluu waxaad dhahdaan undurnaa kelimadaa undurnaa isticmaala raacinaa undurnaa waa isku macno laakiin kelimada yuhuudda marka loo eega raacinaa way noo imaan doontaane waa layan bialsinatihim waa leexin carabyaalkay ku leexinayaan iyo watacnan fi ddiin raacinaa marka xaggooda loo fiiriyo waxay noqonaysaa doqonkan midkaan raacigeena ah doqonkan bay ula jeedaan saa darteed faaha isticmaalinee waquuluu undurnaa na eeg dhaha na soo fiiri wasmacuu maqla hadalkiisana walilkaafiriina kaafiriintuna cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun ee xanuun badane kaafiriinta cadaab xanuunjiya oo aad iyo aad u laxawiya ayay leeyihiin buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alla rumeeyeyow laa taquuluu ha odhanina rasuulka raacinaa ha dhihina na ilaali ha dhihina kelimadaa raacinaa waxaad ku beddeshaan waquuluu waxaad dhahdaan waquuluu undurnaa na soo eeg dhaha macnaha raacina undurnaa waa isku mid laakiin kelimadaa raacinaada ah ayaa waxay noqonaysaa bedelitaan waxay noqonaysaa tacni iyo duritaan diinka la duro waxay noqonaysaa hadal aan wanaagsanayn waxay noqonaysaa hadal haddii la fiiriyo luqadooda hadal aan wanaagsanayn ku ah way noo imaan doontaa suuratu nisaa markii aan gaarno min aladiina haaduu yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi kuwa yahuudoobay kelimadii booskeeda ka taxriifinayaan wayaquuluuna samicnaa wacasaynaa wasmac gayra musmacin waraacinaa layan bialsinatihim watacnan fi ddiin
فاسو إلهي تلمامي ددكا وحي كبدليان كلمة بوسكيدي ويقولون سمعنا وعصينا وحين أرنيان مقلنا عاصمينا واسمع مقل غير مسمع مثل مقل غير في أدقاء وراعنا بإليهن راعنا محي إليهن وليا ليحن بألسنتهم لقدوا مركلة في عرب كودا هي وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم بير إلى سبحانه وتعالى هدي إيه لها ينسمعنا وأطعنا مقلنا أو أطعنا واسمع مقل وانظرنا ماشي راعنا أيدهين وانظرنا هدي إيه لها ين لكان خيرا لهم كاساء خير بنان لها وأقوم تاساء تصنان بنان لها ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا حالة سمرك إلهي تلماما يا أو مسلمين تا وحلو جدك يا راعنا بدل كيدنا وإني كبدلان وقولوا انظرنا نصائك واسمعوا مقلنا رسولك أمر كيسا وركيسا وللكافرين كافرين تنا عذاب بيليهن أليم إحنون بضانه ما يود الذين كبي مجعل كفروا كفري ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كمث أهول المشركين هي مشركين ترى مجعل يري إلهي أي مجعل أي ينزل إلا دجيه عليكم كركين من خير إلا قصوا دجيه من ربكم حجيس كأهاذي والله إلهينا يختص وحقوق صفات وحسقاس أصيا برحمته النحريستي سمن يشاء قفي أوضانه والله إلهينا ذو الفضل الله فضل أصاحب أهواي العظيم مركاوي إلهينا الله فضل أصاحب أيو أهاضي فضله سنؤويه سيدا درتد إلهي سبحانه وتعالى عدوا دونو قصصا عدوا دونو سخاف أصيا أهم يقسمون رحمة ربك ما أيضا قيريا ربك نحريستيسا نحن قصمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا أنا قيدنا نبودا إلى سبحانه وتعالى رحمة إلهي سودان أبحيا عدو دانو نصيا عدو كرات شمايا نمجر سبحانه وتعالى إذا لمنك أهل كتاب كي كافرين تبودا إلهي مجعل إن خير لدين كسو دجيو مشركين تنصاص وكالي ما يود الذين كوي مجعل كفروا قالوا بيء من أهل الكتاب أهل الكتاب كمث أهول المشركين إيا مشركين ترى أن ينزل إلا دجيه عليكم كركين من خير حقي الذي كفوا دجيه ولما من ربكم ربك الحديث كأهاتي ربك النحريستي سعد الله لأدو دانوسيا أيضا مرك الرحمة الله إيا خير كأله إيا وح الله لوحي خير أهو ونكسن ولبا ربكين حقي سائدين كغا إيمانايا مجعل إن لدين كفر دجيو لمن كان له كتابك وعدل إذن مرضان إذن مجعل والله يختص الله سوحوك خصصا وكقاسيالا وسجونيا أصيا برحمته رحمتي سما يشاء قفو دونه إلهي إذ الله لعدو دونه في خاصة أي أصينا يا الحديثيسة والله إلهي ذو الفضل والله فضل أصاحبها العظيم إيوين فضل عظيم أي أصاحب يهي إلهي ما يود الذين كبي مجعل كفروا كفريي أو من أهل الكتاب أهل كتاب كمثة ويولي نصاري ولا المشركين حتى مشركين مجعل أن ينزل إلا دجيه عليكم كركين إنو كسودغو من خير إنو إذن كسودغو إن دشين خير لغو دجيه نبي نمو رسالة نمع برواقه خير عافمات انت صوتا مركة هلامبا وحي كجبنا عبدين المسلمين تقولها شيء مجرته مسلمين تخير قالتي مجرته فادرت يبو إلهي يري أن ينزل إلا الدجيء عليكم كركين من خير أو من ربكم ربكين حقي فكأهاضي والله إلهينا يختص وحوكو قصصا وفكقوني يلا سقاف أفيا برحمته رحمتي في نحريستي سوحي دونتها أهاتي من يشاو قفي أدونه إذي أدونه فيا إذو كلت شبايين مجره والله إلهينا ذو الفضل
alla fadli u saaxiib ayuu ahaaday fadli alcadiimi ee markaa weyn ilaahay alla deeq weyn u saaxiib ayuu ahaaday subxaana wa tacaala idan qofkuu doonuu siiya ciduu kala tashanayana ma jiro cid kula xisaabtamaysana ma jiro maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin wabiاllahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam